أنا جاي الشعب جايبه يري وين رجع الضمر وحنو ديارنا هاي أنا قلنا كور جليا إن عندي جيجا هي النفط يدا كود دفاع عنه كل كسومال وحن شعب يوجو باغيا إن يودي يرجروبان دفاعه قرك وحن وسطك حريقيا إن الصومال الآن عندنا الدولان كوهين عد كسته الدولان كسوق عض الصومال الآن وحن بري دورنا 10 آني ولي جود إلى وين دولة دي كعان كعيد محمد سياد بره waxay dunidu u qirsanayd inay ahayd dawladdii ugu xoogga weynayd Afrikada Madow bal Soomaalidu ha isweydiiso xagii ku dambeeyay dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxaan isleeyahay dawladda xabaasheedii Hargeysa ka qodan tahay dayuuradihii iyo taawangiyadiina waxay sulan yihiin suuqyada Hargeysa هتراوله مركي وجودا بيسي سياد برهلا هذلي مركو إذا ما دي كسور لمي هرجيسة هي برعو وحكويري كان دبابة دي هراي أنا ونروح عليه بالحسن وما أنت كان دبابة دي هراي أنا هو لا سعانات دولاكم بيه waxaase ku kabayaa arintaas sheekadan ninkii hogaamiyihii saddexaad ee Itixaadka Soviet ama Soviet Union oo la oran jiray Nikita Khrushchev ayaa nin wariyahay wuxuu weydiiyey Talyaaniga ma ku duulaysaa sababtu lahaa ma ugu duulaysaana waxay ahayd Mareykanka saldhig ka samaystay dabeedna Nikita Khrushchev wuxuu yiri maya Talyaaniga ku duuli maayo laakiin meel kastoo saldhig Mareykan ku yaalo waanu ku duulaynaa waxaan ka digayaa inay laascaanood noqoto meel lagaga soo duulo Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Puntland oo aan ka wada shaqeynayno nabadda iyo xasiloonida gobolka dardaarankayga ugu dambeeya waa midnimo waa difaac qaran iyo inaynu diyaar aniga iyo shacbigaygu yar iyo weyn rag iyo dumar waxaanu diyaar u nahay aniguna aan ku horgelayaa inaan dhiigayaga iyo naftayada ku difaacano dhulka Soomaaliya waxaan shacabka ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan difaaca qaranka waxaan hoosta ka xariiqayaa inaan Somaliland cidna duulaan ku ahayn cid kasta oo duulaan ku soo qaada Somaliland waxaanu bari doonaa 10 aanay weligood ilaawin dawladdii kacaanka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre waxay dunidu u qirsanayd inay ahayd dawladdii ugu xoogga weynayd Afrikada Madow bal Soomaalidu ha isweydiiso xagii ku dambeeyay dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxaan isleeyahay dawladda xabaasheedii Hargeysa ka qodan tahay dayuuradihii iyo taawangiyadiina waxay sulan yihiin suuqyada Hargeysa هتراوله مركي وجودا بيسي سياد برهلا هذلي
markuu ciidamadii ku soo dhameeyay Hargeysa iyo Burco wuxuu ku yiri keen dabaabadii hadhay aniguna waxaan leeyahay bal xasano maanta keen dabaabadii hadhay anigu laasacaanood duulaan kuma yihi waxaase ku kabayaa arrintaas sheekadan ninkii hogaamiyihii saddexaad ee itixaadka Soviet ama Soviet Union oo la oran jiray Nikita Khrushchev ayaa nin wariyahay wuxuu weydiiyey Talyaaniga ma ku duulaysaa sababtu lahaa ma ugu duulaysaana waxay ahayd Maraykanka saldhig ka samaystay dabeedna Nikita Khrushchev wuxuu yiri maya Talyaaniga ku duuli maayo laakiin meel kastoo saldhig Maraykan ku yaalo waanu ku duulaynaa waxaan ka digayaa inay Laascaanood noqoto meel lagaga soo duulo Somaliland waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Puntland oo aan ka wada shaqaynayno nabadda iyo xasiloonida gobolka dardaarankayga ugu dambeeya waa midnimo waa difaac qaran iyo inaynu u diyaar garowno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abadii hadhay aniguna waxaan leeyahay bal xasano maanta keen dabaabadii hadhay anigu laasacaanood duulaan kuma yihi waxaase ku kabayaa arrintaas sheekadan ninkii hogaamiyihii saddexaad ee itixaadka Soviet ama Soviet Union oo la oran jiray Nikita Khrushchev ayaa nin wariyahay wuxuu weydiiyey Talyaaniga ma ku duulaysaa sababtu lahaa ma ugu duulaysaana waxay ahayd Maraykanka saldhig ka samaystay dabeedna Nikita Khrushchev wuxuu yiri maya Talyaaniga ku duuli maayo laakiin meel kastoo saldhig Maraykan ku yaalo waanu ku duulaynaa waxaan ka digayaa inay Laascaanood noqoto meel lagaga soo duulo Somaliland waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Puntland oo aan ka wada shaqaynayno nabadda iyo xasiloonida gobolka dardaarankayga ugu dambeeya waa midnimo